Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaynu joognaa nolosha marxalad ay hafisay dhaqanka reer galbeedka kaasoo diiradda saaraya laba fikradood oo baaxad leh. Mid ka mid ah waa raadinta badhaadhe nololeed oo dhaqso ah oo dad tiro yari aad mooday in ay isu diyaariyeen filashadiisa ama ay aad ugu mashquulsan yihiin si ay ugu hantaan, halka qaarna ay hafisay ama ay ka cabanayaan duruufaha ka sokeeya ee adag. Waxaynu arkaynaa adduunyadan aynu dhex joogno oo ah mid hodantinimo iyo awoodeed, sida lagu soo bandhigo telefishinada iyo filimada oo ah sida loo arko, waxaana loo wada tafaxaydan yahay oo hubaal ah helista badhaadhe degdeg ah adduunyada guudkeeda. Haddaba intee in leeg ayay suurtagal noqon kartaa in dadku ugu fikiraan naftooda si ay isugu diyaariyaan lama huraanta aakhiro? Arrinta kale ee baaxadda leh taasoo dhaqanka reer galbeedku baritaaraya waxa ay tahay iyadoo dadka laga dhigay kooxo kala sarreeya oo kala mudan dhinaca qofnimada, milkiga iyo maqaamka. Tan marka laga hadlayo waxa ay telefishinada iyo filimadu ku soo bandhigaan waxa ay in badan ugu talagaleen in ay ku gudbiyaan dareenno laga buuxinayo maskaxda dadka. Fikrad ahaanna ay sal u tahay in markaad awood dhaqaale hesha ay la mid tahay in aad heshay xorriyadda ah madaxa bannaan ahna in aad u xorriyad heshay wax kasta oo aad jeceshahay in aad samayso ama aad ku kacdo ficil ahaan adiga oo aan haba yaraatee ka warwarayn natiijada ka dhalan karta ficiladaasi. Dembiyadii ayaa sii kordhaya dunida guudkeeda, halka niyadda wanaagsan iyo diintuna yihiin kuwa la suulinayo, la dullaynayo, lana hagaasinayo, iyadoo loo arko in ku baraarugeedu keenayo khatar nabadgelyo darro iyo cabsi baahsan. Waxaa hubaal ah in korarka xanuunnada maskaxda iyo cadaadis maskaxeedka adduunyada ka jira ay calaamad u yihiin raadka xun ee uu sababay dhaqanka ilbaxaynta iyo casriyeynta ee reer galbeedka. Haddaba walaalka muslimka ahow, islaamku wuxuu si cad uga duwan yahay habka horumarka reer galbeedka. Ilaahay subxaanahu wa tacaala isaga ayaa u ogaal ah qaabka ugu fiican ee kasmada garaadka bini'aadamka. Qur'aanka iyo sunnuhuna waa kuwa ugu habboon ee ka turjumaya dabeecadda bini'aadamka.